عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام يا أصحابي بستجدون حين اللي هاي وقتي هيدين معنا هذا نلاش هيدين سمعته ما أنت بحر بقينا كهرلو أرين سوى نقطة وياها المقدشة وحنكوري مرة البوالس كعادي استبان وحالة قديك توح عادة رساقة دورت إلى هاي ملقا من هيدين ساران لي هاي أنت وحكو دقنيسو وحونا كويسان حمانكم ما هليسي مرة البوحة اسكت أنا دقن كي هدها حنبار سنتانو والله بلا عيلة لديدو يا مانتا سومالي وين يابناهاي وين يابناهاي وسحنا حداف هذا الكحته ويدي بيا مانتا والله waxa muhiim ah mataqaana mar walba inaad dhaqankaaga iyo wax wanaagsan iyo wax oo diinta raali ka tahay adina wax ku dhimin wax ku raadsatid laakiin aad tiraahdo markasta xumaanaan wax ku raadinaya irsaaqada xumaankaas oo gash Ilaahay inuu kugu caroonaya cadaabkana waad ku tagaysaa adduunyadana waxaan ku yiri faxshiriya ceeb iyo waxa waaye waxa sameynaa waa Soomaali kulay nin iyo naag ceebtu way wada qabataa laakiin si gooni ceebtu waxay u qabataa hablaha gabar Soomaaliyeed tahay inta meel istaagtid waxaa ku hadashid wallahi wax munaasib ma ahan waa wax laga xishoodo laga yaxyixo laga xanaaq wallahi waan dididaya ciil darti way abanahay hadan arkay naagta meel istaagto aan waxa ma sheegi karay waxa sheegaysa Soomaaliya bal ila eega gabadhan Soomaaliyeed inna lillahi انت مامحة انت لا انا حرام رجعنا الله يسكرتا بسم الله والعافية حرام الله عمر انت ما تسوسان هاي تسكسينا بوسي سوامي انا مفروض والله نيك واسوبس واحدة واسوبس سأودي مطلع يا إنكو إسماء عقله سأوش بسم الله أنا هذا بقولوا إيه بس واحد واسكت ما دام عندهم براني هاي بنو درسك حلاش يدرس حلاش وعرفتنا أمالنا يا وحي شيء يسوق كل وحنا أفسو مرينين قف يعني حشونا حشود كتيرو dumarnimo iska day hatta nin rag wuxuu sheegi kara ma aha wuxuu sheegayso kale waxaan la yaabay la tacajabay la farajacay la amakaagay ilaa hadda aan la yaabana wallahi waa yaabana qof Soomaaliyeed inta meel barxad istaago waxa ku dhaqmay waxa ku hadlay wiligiin ma aragteen ilaahay laga baqaan leeyahay asxaabay wallahi bila ma rabin inaan wax duubo laakiin waxa igu qasbina wax soo duubo maanta waxaas facsharka horan oo uga hadlaadana ka hadlaya bilaa caleek ilaahay laga cabsado dawladeena Soomaaliyeedna waxaan leeyahay waxaani ha naga qabato dadkani dadkii dalana waxaan leeyahay kulay ninka dhasheen qof caasina waa qof waa la cidiisa xirxiratay dhahan Soomaalida qof caasina uu leeyahay hanuuniyo ma lama celi karo laakiin yani waxa loo sheego Allah soo hanuuniyo ninka Allah iska leh laakiin sida irsaaqada lagu raadinayo waa si qaldan irsaaqada waxa wanaagsan in si wanaagsan lagu raadiyo si qaldan lagu raadiyo ma ahan wax Ilaahay raali ka yahay wax ku raadso hadaad isleedahay irsaaqada ku helaysaa waxaan aad sheegaysid waa sharaf dhac teeda kale adiga marka waxaan sameeyay dad kugu dayanayo qof oo adiga kala maangaaba meel intuu soo istaago wuxuu leeyahay waxas ina sameeyo wayaan marka waxa dii lagu dayanayo wax wanaagsan ha lagaaga daydo Soomaha waa in wax wanaagsan lagaaga daydo waa in wax dhaqankii aan dhibeenin diinta aan dhibeen anaga Soomaaliyeed nahay inta badan diin aan leenahay ma sha Allah Soomaali inta badan waxa uu leeyahay 100% Soomaalida waa islaam kulli yani niyadooda ilaaha og qaar waxa jiro oo iska dhaho anaga diintii aan ka baxnay لكن Soomaalida waa islaam dhaqan ay leedahay xeer ay leedahay sharcina qabtaan leenahay shuruuca leenahay waxaan ma qabi jirin Soomaaliya bilaa caleek a'uudu billahi min shaytaan rajiim shaytaanka taas ka naartaan tibis ku laabta wallahi tibis ku laabta waxaan wax qaldan weeyaan diinna ma ku wanaagsana dhaqanna kuma wanaagsana sharafna kuma wanaagsana dumara tahay ceebtana qofka dheer ay qabatay ilaahay dumarka waxa waaye ragga ceebtooda iyo dumarka ceebo badan ma rabo because ninka ragga ceeb ma qabataba asaga soo saamaha rag ceeb ma qabato laakiin gabar marka tahay sharaftaada ilaali ina sharaftaada ilaalisid inaad ilaalisid inaad yani cisi ku noolaatid adduunyada magac ku noolow midada kale ilmaad dhashay ama wadali doonta insha Allah mustaqbalka ilmahaaga markuu halka ka eego muxuu leeyahay hooyadii waxa sameyn jirtay markii hore waxaan taariikhdi ku galayaan waa taariikh kama baxayaan ha isdhiin waxaan maanta sameysay birin wad ka tagaysaa wad ka qabaysanaysaa kama qabaysanaysid meesha ku yaali social media waa kayd marka ilaahay ka baq isku xisho fiidiyoga dib u daawo waxa sameynaysid wax qaldan weeyaan midda kale hadii xataa laga aqli badan oo lagu yiraahdo waxaan sameey waxa tiraan waxaan sameyn maayo sharaftaada ilaasho
adoo weliba wax sameeyo waxaa laga yaabaa marka qaar haddaad adiga actor tahay ama attriisho tahay ama fanaan tahay xataa fanaanka marka heesaha qaar loo keeno waxaa la rabaa inuu yidhaaho heestan anu ima qancin adeer agwan la laabo heestan anu qaadi maayo maxaa yeele adiga sumcaddaadi sharaftaada haddaad adiga ilaasho cid ku ilaalinaysa ma jirto adiga sumcaddaadi sharaftaada haddaad iskale adiga ilaasho adoo gabar soomaaliyeed inaad meel inta istaagtid acuudu billaahi bal wax isku fala intaa meel istaagtid waryaa waxaan waa inaad samaysid subxaan allah weligeed may dhicin ilmaha yaryariska faqiirada dugsiyada aaday iskuullada markay fiirsadaan waxaasoo kale ilan adduunkii dhanaa wada meeliya noqday maxaa waaye ilmihi yaryaraa walaashii dhashaa joogaan guriga iskuulladii naga xiran karoon fiirsaa laga cabsanaa maa la dhahaa ilaahay manoo keenee gurigaa la iskaaga xariisan yahay ma fahantiin caruurtiisoo kacda umaleyna wax lee qaab qacda ku haaya ma fahantiin laakiin anigu fiideo inaa duubo maba rabinba xaafada fiideo ku duubana maan joogin fiideo inaa duubana hadda qorshadayga muu ahayn laakiin waxaa igu kalifay gabar soomaaliyeed in inta meel istaagta tiraha nin yahuudee isi soo yaaci waxaas wax laga xishooda wayaan dhaqanna ma ku fiicno diinna ma ku fiicno anshaxna ma ku fiicno dumarkeena soomaaliyeedna dee ceebta wayna wada qabanaysaaye maxaa la dhihi jira badda hal malaayo qurmiye ina adeer inaga daa waxaa samaynaysid ka fikir mustaqbalka foojarka ilmahaaga aad dhali doonti adee ku anfacaysaa haddaad waalidkaa u turi weyso ehelkaaga u turi weyso soomaalida u turi weyso xishoodkaaga u turi weyso laakiin waxaad u turtaa carruurta beri mustaqbalka dhali doonta ama kuwaa dhashay ilan beri way ku daawanayaan hooyadii waxaasay samayn jirta shalay leeyihiin marka isku badno waan leeyahay ilaahay idin soo hanuuniyo risaaqada geed gaagaaban oo laga soo aruursada allaha noo saaro waan idin jecelahay markastood joogtaan asxaabteyda mar walbo waan idinku faraxsanahay waan idinku faanaa maanta waan xanaaqsanahay dhibida iga baxayo iga raalli ahaada haddaan si kulul u hadlay asalaamu allahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu